ninka Trump ahaa iyo waxaa maanta ishelay ninka FIFA ciyaaraha adduunka kubadda cagta FIFA madaxda ka ah maadaama Mareykanka lagu qaban rabo ciyaaraha adduunka 2026ka Mexican xoogaa lagu qabanayo Canadana qayb ka mid ah ciyaaraha lagu qabanayo su'aal isu dinaysaa su'aalaas waa ka jawaabi doonaa meeqa tikitka Mareykanka marka lagu ciyaarayo meeqa la gedi doonaa tikitka ee ciyaaraha ku fiirsanaysid Brazil iyo France markay ciyaarayaan meeqa laga ayaa yaabi doontid marka ninka Trump ah horta saddex muuqaal idinka wada muuqaalka koowaad waxa waaye Donald Trump oo loo sheegay lacagta ay qaataan Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi waa weyn lacagta ay qaataan waxa laga yaabaa intiina badan dhalinyarada inay ogtihiin Ronaldo wuxuu qaataa 275 milyan oo dollar oo annually ah ayuu qaataa 275 million dollars oo qaataa yaa qaato Cristiano Ronaldo 250 waa mishaarkiisa inta kale ee soo hartana waa xayeysiin kabahan oo Adidas uu xayeysiyo funaanadan saabuuntan intaas wuxuu ku qaataa intaas milyan oo dollar Ronaldo iyo adeeg ku taala cida taageersantahay laakiin Ronaldo iyo Messi waxa lacag badan Ronaldo Messi wuxuu qaataa 200 milyan oo dollar annually Cristiano Ronaldo wuxuu qaataa 275 milyan sababta uu sheegay waxay tahay Trump maanta loo sheegay Trump wuxuu yiri ma kala yaqaan mogtaas Amerikaankan ciyaarahan footballka waxba kama og Trump markuu wuxuu yiri hay yarka FIFA miyaha niyo ii sheegay ciyaaryahanada meeqa qaataan kii FIFA wuxuu yiri Ronaldo wuxuu qaataa 275 milyan Trump ha soo boodo kulaha ya banoniga intaas ma lagu qaataa aniga intaas niyo 10 sano xitaa ma soo gashay Trump dhaay waana run madax Ronaldo iyo Messi iyo madaxweynayaasha adduunka qaarkood Afrika oo dhan isku soo dardar lacagta مش مش فراي نقدر رونالدو iyo geedka yar oo ku dhigan Afrika madaxdooda isku soo dirdirtid geedkaas qiimo badan tubada way Trump markii loo sheegay uu soo booday wuxuu yiri Trump saas deetay hadda wixii dambe ciyaaryahan noqonaa waa ciyaara banoniga kubadda cagta waa ciyaaraba ilaa Trump lacag leh kalunta sig mugti ninkan ganacsado siyaasad shaqadiis baa loo doortaa asaaba yaa bab macal ii doortu taagay marka asagoo dhahay Trump muuqaalka waa kana nimayho adees saas tahay aniga laftirkeyga ciyaaryahan qatar ahay waa ciyaari karaa wiilkayga xitaa ciyaaryahan fiican waay banoniga hal igu daro I see the money that these soccer players, we call it soccer, but I see the money that these soccer players are making. I may try and play. I'm a very good athlete. My son is a very good athlete. Trump marka daacad ay ka tahay asagoo oday laakiin wiilkiisa hadii wiilka Baron ay dhahan asaga yar ee jaamacadda hadda galay uu dhihi doonaa niyo banoniga gal Cristiano Ronaldo lacagta ay qaataan soo qaado meesh lacaga taal Trump la dhiga way muuqaalka labaad ciyaaraha adduunka waxa lagu qabanayaa Mareykanka lagu qabanaa 2026 adduunka oo dhan ay imaanayo coachka imaanayo ciyaaryahanada imaanayo ku Brazil ku Afrika kuwa Europe dhan inta imaanayo mugtay marka Trump oo faanayo oo dhahayo anaga bahasha martigelinayno ciidan kale ee anaga dariskana la ah labadan dal Canada iyo Mexicana kasto yara iska siinay oo sasabis ah oo idinka halkoo ciyaar idinka macna martigeliya wasas ninka dhan oo faanayo oo dariskiisa ka hanaajinayo Trump wuji male waak Works very hard and he's got the biggest event in the world coming right here to the United States. We did a little for Canada, we did a little for Mexico. We thought, see, I'm a good citizen. I said, let them have a little piece. So we gave a little to Canada, see how nice I am? And we muuqaalka kale waa kana FIFA oo joogo aqalka cad madaxweynaha FIFA wuxuu keenay koobkii adduunka la qaadayo ciyaaryahanada kooxda guuleysata koobkii ay qaadi lahayd koobka quruxda badnaa ee dhalaalayay ee dahabka ka samaysnaa alkeen miiska loo soo saaray Trump halkii uu saas u qabtay quruxdiisa iyo culayska intuu ka yaabay uu saa u fiiriyay wuxuu yiri maba dhiibaayo kan ku dhiganaana xagga hal isaaru dhameelo tilmaamo qolka uu Trump fadhiyo kamid ah aqalka cad uu yiri baalka meeshaas ku fiican yahay meeshaas hal isuro foodaha liga daayo kii FIFA miyaa iska baasha ara qaaday ka FIFA wuxuu leeyahay baalkan ciyaar laguma taabto kooxda guuleysato kaliya qaado madaxweynayaasha adduunka qaarkood waa loo ogol yahay kan FIFA oo kale inuu qaado loo ogol yahay laakiin qofka ugu dambeeyay ee koobka saas u qaado wuxuu ahaa Lionel Messi It is the trophy that the winner of the FIFA World Cup wins. Only the FIFA presidents of countries, and then those who win can touch it, because it's for winners only. And since you are a winner, of course, you can
as well touch it. It's pretty heavy. Yeah. It's the winner trophy. The last one who lifted that is Lionel Messi of Argentina. And here it is in the Oval Office in the White House. Can I keep it? For you. Well, you can keep not it after giving the it World back. Cup. We're not giving it back. That's serious. It fits well That here. goes very well on the wall right over there. We'll put it right below the angels. It fits well here, I think. waayahay qaybta ugu dambeysay ciyaaraha bilowga ciyaaraha markii ciyaaraha adduunka la furo tikidada waxaa la gadooyaa inta u dhaxayso 350 ilaa 700 oo dollar waa ciyaaraha bilowgooda leeyahay semifinalka marka la gaaro 100 dollar aa la gadooyaa tikidka semifinalka finalka marka la gaarana koox alaale kooxda soo baxdaba 2026 ciyaaraha adduunka waxaa la gadooyaa 1,000 iyo wamaazada tikidada la gadooyaa adduunka dhanaa laga imaanaa hadda ummad dadka hadda waxaa arkaysaa milyanaad qof oo indhaha ku hayso berri marka tikidada la furo gadistooda abuu dad waxaa magaalada joogo kuna sheegtee hadda tikidada qaar on sale la dhahaya jiro qofaa intuu tikidka $1 ku gato uu sii gadaa dada saas lacagaa lagu sameeyaa 2,000 uu sii gadaa 3,000 uu sii gadaa xariif qoftiisa rabo inuu geeyo meel oo ciyaaryahanada caanka ay ka ciyaarayaan adi marka waxaa arki doontaa tikidada la gedi doona 5,000 ilaa 6,000 5,000 ilaa 6,000 dada awoodo koo waxaa laga yaabaa $1 $2 inay u gambis xariifna tikidka ciyaaraha uu ku galaya asagii qoftiisa $6,000 $6,000 calaa tikid la gadooyaa 12,000